duqeyn cusub ayaa maanta ka dhacday caasimadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya waxaana ku dhintay ugu yaraan hal qof siday sheegeen mas'uuliyiinta isbitaalka ugu weyn ee magaalada. Meydka hal qof ayaa la keenay isbitaalka Aydar kadib weerar drone ah oo ka dhacay magaalada Mekelle ee aagga Deste Hotel. Waxaa sidaas Twitter-ka ku soo qoray isbitaalka. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 17 qof lagu dilay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray tan iyo markii uu dagaalka dib u qarxay bil ka hor. Dagaalka oo dib u bilowday 24 Agoosto ayaa meesha ka saaray xabad joojin jirtay ilaa bishii March, wuxuuna meesha ka saaray in si nabdoon loo xaliyo dagaalka labada sano ee u dhexeeya dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo kooxda TPLF. Mas'uuliyiinta Tigray ayaa bishaan ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wadahadallo u dhexdhexaadin doona ururka Midowga Afrika, taasoo meesha ka saartay caqabad muddo hortaagneed wadaxaajoodka. Dagaalka ayaa muddo 2 sano ku dhow ee uu socdo waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaana la diiwaan geliyay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo ay geysteen dhammaan dhinacyada.